Mahmaah liidata ayaa tidhaahda kalluumaysatada dhabta ahi maaha kan badda kalluunka kala soo baxa badda oo deggan, ee waa kan badda kalluunka ka gurta iyada oo kacsan. Waa barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono booqashadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku tegay dalka Kenya iyo tan Cabdiraxmaan Ciro. Waa qalankii Cabdilaahi Xidig iyo tebita oo ah Cabdi Samed Cawil. waxaa cirka isku shareeray sanadkii 2020 xiisad u dhaxaysay dalalka Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo salka ku haysay dacwadii badda ee ka socotay maxkamadda cadaaladda dunida ee Hague. Sidaasi waxa ay sababtay inay Kenya erido safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Nairobi, Soomaaliyana sidaasi lamida ay samayso, waxaanay Soomaaliya joojisay qaadkii Kenya ee Soomaaliya la geyn jiray. Haddaba maadaama uu dal walba sameynayay wax uu kaga xadhaysiiyo dalka kale, waxay Kenya casuumaad u dirtay madaxweynihii Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi si Soomaaliya Kenya uga xadhaysiiso. 13 Noofembar 2020 ayuu Muuse Biixi ka degay dalka Kenya, waxaana soo dhaweeyay wasiirkii beeraha ee Kenya, ilaa ugu dambeyn uu la kulmay madaxweynaha dalka. Waxaa waagaas ay kala saxiixdeen heshiis 4 qodob ka koobnaa: 1. In qaadka mirooga suuqgeyn looga sameeyo Somaliland. 2. In diyaaradda Kenya Airways duulimaad ka bilowda madaarka Hargeysa. 3. In baasaboorka Somaliland lagu galo fiisaha Kenya. 4. In Kenya safaarad ka furato Hargeysa. Haddaba heshiiskaas kadib Kenya iyo Soomaaliya way isu soo dhawaadeen. Qodobadaasna mid quri kama fulin, mana dhicin xidhiidh dambe oo labada dal dhex maray. Keliya karbaash buu ahaa laynagu karbaashayay Soomaaliya, ee muu ahayn xidhiidh ku yimid diblomaasiyad iyo aqoon. Madaxweyne Cabdiraxmaan wuxuu Kenya tegay iyada oo xidhiidhka Soomaaliya iyo Kenya uu fiican yahay, isla markaana aanu jirin wax khilaaf ah oo labada dal ka dhexeeya. Sida muuqata, waxa ay Soomaaliya Kenya u soo dirtay warqado ay ku diidan tahay imaatinka madaxweynaha Somaliland. Warqadihii Kenya ay soo saartayna waxay ahaayeen kuwa Kenya culayska diblomaasiyadeed ay isaga yareynaysay, laakiin waxaasoo dhan madaxweynaha iyo wafdigiisa kamay hor istaagin in madaxweynaha meeqaam heerkiisu sarreeyo lagu qaabilo. Isaga oo madaxweynuhu ku dul socday roogga cas ee madaxyaweynta dalkaas booqda loo dhigo, isla markaasna wuxuu madaxweynuhu saxeexay buugga booqashada madaxda dunida oo daawanaysa. Ayuu madaxweynuhu furay safaarad heerkeedu sarreyso oo Somaliland yeelato, ilaa ugu dambeyn heshiisyo waaweyn uu kulan weyn kula saxeexday madaxweynaha. Mahmaah liidata ayaa tidhaahda kalluumaysatada dhabta ahi maaha kan badda kalluunka kala soo baxa badda oo deggan, ee waa kan badda kalluunka ka gurta iyada oo kacsan. Diblomaasiyaddu ma aha in cid lagu karbaasho, laakiin waa inaad danahaaga dhex marsan karto labada isjecel.